nabadgelyo. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Sharafi korkiina ha ahaato. Anigu waxaan ahay Sayid Cali Macalin Ibraahim. Kanina waa barnaamijkeennii Is Abuur. Inta guushaada kugu kaalmayn doontaa ee ku caawin doonta xilliyada fiican iyo xilliyada adagba aad bay u yaryihiin oo waa dhif iyo khaliil, laakiin kuwa kuu imaan doona goortii aad guulaysato, kuu hambalyayn doona, sheegan doona guushaada aad bay u badnaan doonaan. Midna xilliga dhibka ah ee qaabta daran buu kula joogay oo uu garabkaaga taagnaa. Midna waxa uu kuu imaaday goortii uu arkay guushaada oo uu ku dhihi doonaa yes, kani waa qayb iga mid ah aniga, waa guulayste. Wuu kugu faani doonaa, laakiin ma uusan ka mid ahayn kuwa ku caawiyey goortaad dhibtoonaysay oo aad dhiirigelinta u baahnayd. Midna waxa uu ku garab taagnaa xilliyadii adkaa, noloshu dhinac walba ay kaa xumaysay, waa uu ku dhiirigelinayay, garabkaaga ayuu ahaa. Dadkuna waa labadaasi qaybood. Adiguna guushaada dadaalkeeda adiga ayaa leh. Meel walbaahina wadooyin dhib badan oo saxariir ah baa kaa jira. Wadooyinku way kaa soo xirmi doonaan, wax badan oo dhib ahna waad la kulmi doontaa, iyo waxyaabo aad u badan oo dadka badankood aysan u adkaysan karin. Balse hadday dhab kaa tahay inaad guulaysato, waad ka gudbi doontaa caqabadahaasi oo dhan oo waad gaari doontaa hadafkaaga. Mar waad raaxaysan doontaa oo waad heli doontaa wixii aad u dulqaadanaysay oo aad u sabraysay. oo Ilaahay quraankiisa waxa uu ku leeyahay inna ma'al usri yusra, dhib walbaahi fudeed baa ka dambeeya. Sidoo kale Rabbiga Khaaliqa quraankiisa waxa uu ku leeyahay inna Allaha ma'as saabiriin. Ilaahay waxa uu la jiraa kuwa sabra ee qadaha Ilaahay iyo Rabbi waxa uu qoray ku sabra, raalina ku noqda. Sidaa daraadeed, haddaad sabar yeelato oo aad dadaasho oo aad joogtayso wax qabadkaaga, xaqiiq kuwa guulaystay baad ka mid noqonaysaa. Cabqari dhab ah baad noqonaysaa, nin aan waxba laga qaban karin, nin dadka ficiisa markay baashaalayeen isagu dhidid iyo dhibaato isku huray, laakiin marka ay asxaabtiisu dhibaatoonayaan isaga raaxaysanaya oo farxaya ayaad noqonaysaa, oo aan marnaba shalaynaynin. Sababtoo ah asxaabtaadu marka ay baashaalayaan iska dhaclaysanayaan, adigu waxaad ahayd qof habeen iyo maalin soo jeeday, u dhibaatoonayay inuu iftiin qurxoon samaysto, nal isagu leeyahay uu daarto. Laakiin markaad ka soo gudubto dhibkaasi iyo saxariirtaasi, waxaad galaysaa nolol aad u qurux badan oo waxaad guranaysaa mirihii aad abuuratay sannado ka hor. Balse asxaabtaadu waxay guranayaan mirihii qaraaraa ee ay soo abuurteen. Mirahaasina waxa uu ahaa in wakhtigooda ay lumiyeen, wax micnana aysan soo kordhin, wakhtigoodana uu ka dhammaaday. Adiguna wakhtigaaga waad ka soo faa'iidaysatay, waxaadna u soo diyaargarowday inaad nolosha quruxda badan aad qaabisho, maadaama aad u soo dulqaadatay intii dhibka badneed. Qof walbaahi oo u dulqaata inta dhibka badan, gadaasheed waxaa imaan doona fursado aad u qurux badan iyo nolol aad u macaan, iyo weliba ay ka dambayso jannadii weyneed. Qof walbaahoo dadaala, qof walboo jidkiisa toosan raaca, qof walboo guushiisa dhabtaa raadsada, isaga ayaa xaq u lahaanaya. Kan aan raadsan ee maalaayacniga isaga jirana isagaa doortay oo meeshiisa ayuu ahaan doonaa. Nin walba dadaalkiisa ayaa ciili doonaa, nin walbana dadaalkiisa ayuu horumar ku gaari doonaa. Dadaal intaad nooshahay, haddaad dhimato Rabbi baad u qabtaa wax walba, balse intaad nooshahay dadaal ku dadaal adduun iyo aakhiro. Dhammaanteen xaq baynu u leenahay inaynu ku guulaysanno adduun iyo aakhiro, Rabbina aynu raali gelinno. Rabbi waxaynu weydiisanaynaa Nabi Maxamed waxa uu weydiistay, waxaynu ka magangelaynaa wax walbo Nabi Maxamed uu ka magangelay. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Ilaahay ha idin karaameeyo. xaq baynu u leenahay inaynu guulaysanno mar walba iyo meel walba oo aynu joogno.